Wishing you a very good weekend. subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa magaalada washington. waa jimca bisha juunna waa 4 sanadkuna waa 2021 waxaadna naga dhegaysanaysaan haatan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com. saacaduna haatan afrikada bari waa 6 iyo barkii subaxnimo. idaacadda saakana waxaa idiin soo jeedinaya caashi ibraahim aadan iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah dadka deegaanka baarsanguuni ee ka tirsan degmada jamaame ee gobolka jubbada hoose oo ka cabanaya fatahaado soo laalaabtay oo saamayn ku yeeshay beerahooda iyo nalalka ku shaqeeya qorraxda oo laga hirgeliyey deegaankaasi. meeshaan dadka hadda degan inta aad ku arkaysaan horta waa beeraaley u badan. beerihiina macnaha dadkii inay fashaan diyaaray u yihiin. daruurta maanta ay u falan waayeen waxaa waaye fatahaadda maanta webiga ku haayo ay tabarna u haynin. waxaa kaloo aad maqli doontaan baarlamaanka denmark oo ansixiyey sharci dalku u oggolaanaya inay u musaafuriyaan dadka magagelyadoonka ah ee ku sugan dalkooda waddamo ka baxsan yurub. barnaamijkii amuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka. induneesiya ayaa baajisay xajkii dadkeeda ay xajinayeen sanadkii labaad oo xiriira sababo la xiriira walaac laga qabo cudurka covid-19 ee faafa. sidaasina waxaa sheegay wasiirka arrimaha diinta yuqud juliil qumaas. dad badan oo reer induneesiya ah xajka waxaa u dhacdo hal mar noloshooda ah iyadoo celcelis ahaana wakhtiga sugitaanka uu yahay 20 sano sababtoo ah nidaamka kootada sida laga soo xigtay xogeynta golaha wasiirada ee dalkaasi. wasiirka arrimaha diinta induneesiya qumaas ayaa sheegay in faafidda cudurka covid-19 iyo badqabka xujaayada awgood dowladda ay go'aansatay in sanadkan aysan u oggolaanin xujaayada induneesiya inay xajiyaan. sacuudi arabiya ayaa waxay xayiraada ka qaaday dadka safarka ah ee uga imaanaya 11 waddan oo ay ku soo rogtay si ay u xakamayso faafitaanka cudurka covid-19 sida ay ku waratay wakaaladda wararka ee sacuudi arabiya, laakiin weli u baahnaan doonto hanaan karantiila. madaxweynaha maraykanka joe biden ayaa booqan doona yurub dabayaaqada bishan, taasoo noqon doonta safarkiisii ugu horreeyey ee dibadda uu ugu baxo. sidaasina waxaa lagaga dhawaaqay aqalka cad shalay. madaxweyne biden oo madaxweyne noqday 20kii bishii janawari ayaa intuu ku guda jiro booqashadiisa 10 ilaa 16 bishan juun waxa uu la kulmi doonaa hogaamiyaasha dalalka boqortooyada ingiriiska, belgium iyo switzerland. safarkan ayaa iftiimin doona sida ay maraykanka uga go'an tahay soo celinta isbahaysigiisa dib u soo celinta xiriirkii transatlantic iyo wada shaqayn dhow oo lala yeesho xulafadiisa iyo si wax looga qabto caqabadaha adduunka ka jira iyo sidii loo wanaajin lahaa danaha maraykanka, siday bayaan ku sheegtay afhayeenka aqalka cad. madaxweynaha maraykanka ayaa la kulmi doona ra-iisul wasaare boris johnson 10 bishan juun isagoo ka qaybgali doona shir madaxeedka G7 ee ka dhici doona England. madaxweyne biden ayaa sidoo kale waxa uu la kulmi doonaa boqorada dalka ingiriiska 13 bishan juun ka hor inta uusan u safrin Belgiumka oo kaga qaybgali doona shir madaxeedka NATO, xilligaas oo uu xaqiijin doono ka go'naanshiyaha maraykanka ee NATO, amniga transatlantic iyo difaaca wadajirka ah. dadka deegaanka baarsanguuni ee ka tirsan degmada jamaame ee gobolka jubbada hoose ayaa soo dhoweeyey leerarka cadceedda ku shaqeeya oo laga hirgeliyey deegaankaasi xilli dadka deegaanadaasi ay ka cabanayaan fatahaado soo laablaabtay oo saameyn ku yeeshay beerahooda. faahfaahinta warkaasi waxaa kismaayo nooga soo diray wariyaha v o a exmayo aadan maxamed salaad.
leerarka cadceedda ku shaqeeya ee laga hirgeliyey deegaanka Baarsangooni ee ka tirsan degmada Jamaame ee gobolka Jubbada Hoose ayaa waxaa si weyn u soo dhaweeyay qaybaha kala duwan ee bulshada ee ku nool deegaanadaasi kadib markii mas'uuliyiin uu hogaaminayay gudoomiyaha gobolka Jubbada Hoose Cabdirashiid Cabdullaahi Cali Gooni ay gaareen deegaankaasi kuwaasi oo xarig ka jaray mashaariic horumarineed oo deegaankaasi laga hirgeliyay. dadka deegaanka Baarsangooni oo u badan beeraley ayaa sheegay in ay si weyn u soo dhaweynayaan mashruucan loona baahan yahay in wax laga qabto dhibaatooyinka dhanka fatahaada webiga Jubba uu ka geysanayo meelo badan oo gobolka ka mid ah gaar ahaan nawaaxiga degmada Jamaame. sida maanta baarka ka jirto waxa u badan dadka waa beeraley meeshan dadka hadda degan inta aad ku arkaysaan horta waa beeraley u badan beerihiina macnaha dadkii inay fashaan diyaaray u yihiin daruufta maanta ay u falan waayeen waxa waaye fatahaada maanta webiga ku haayo ay tabarna u haynin hay-adaha samafalka iyo dowladda Jubbaland ayaan macnaha taas codsi aan ugu dhiibanaynaa markii u horeyso in ay macnaha yacni ay naga xiraan leerasha sida macnaha hore loo sheegay waaye amniga ayay noogula shaqeeyaan guriga haddaad jiifto oo barkinta aad ku seexanaysa dhilqa ay kugu soo gasho habeenkii ma hurdaysid. Yaxye Maxamed Abshir gudoomiyaha deegaanada hoos yimaada degmada Jamaame ee gobolka Jubbada Hoose ayaa sheegay in baahiyo badan ay qabaan dadka deegaanadaasi ku nool loona baahan yahay in wax laga qabto. barnaamijkan oo ku saabsanaa daahfurkii solarkan aan maanta aan guul noo tahay maadaama in badan aan muddo ku jirnay inaan maanta solarkii nala waxeeyo waxaa inta ugu dhibaatada badan waxay tahay oo ka jirta waddanka fatahaad dadkan waa beeraley beerihii lama falan karo webigiibaa yaa wada gooyey sababta dhammaanteed maadaama uu webigii gooyey waxa gargaara oo hadda la soo gaartay ama dowladda xaggeeda nooga imaada ama hay'adaha nooga imaada ilaa hadda fatahaadda oo caawin ah ma jirto oo dee mar hadduu dadku beeraley xoolanaysa ay tahayn beerihiina ay u ka gooyey biyihii waxay kasaan ma jiraan sanadii hore kugu sheegayba waxaa jira dadka seecanba caydin intay geedka ugu koraan soo goosta karsada. Cumar Ismaaciil Nuur isku duwaha wasaaradda macdanta iyo biyaha ee Jubbaland ayaa sheegay in qorshahan uu wax badan ka bedelayo nolosha dadka deegaanka Baarsangooni ee gobolka Jubbada Hoose. waxaan maanta daahfuraynaa mashruucaas idin dhamaaday inkastoo cabashooyinkiina aan qaadi doono taasoo ah solarka oo aad u yar sida hadda sheegaysaan 30 xabba ah magaaladana ay aad u mug weyn tahay oo magaalad baaxad weyn ay tahay Baarsangooni kumana filna runtii aan arkayna taa waxay soo jireen ilaa 50 miiloomitir aad bay u kala fog yihiin nalalkii hadda 30 xabba laftigooda aad baan u mahadsantihiin soo dhaweyntaas aad soo dhaweyseen shacabka hadda tihiina dadaalna intaan hadda gobolka uu idin muujiyay ka badan insha Allah waa idin muujin doona. gudoomiyaha gobolka Jubbada Hoose Cabdirashiid Cabdullaahi Cali Gooni ayaa ugu baaqay shacabka deegaanka Baarsangooni ee waqooyiga magaalada Kismaayo in ay ilaashadaan mashaariicda kala duwan ee horumarneed ee deegaanadaasi laga hirgelinayo isagoona sheegay in loo baahan yahay in leerarka cadceedda ku shaqeeya ay dadka deegaanadan ku nool wax badan noloshooda ay ka bedeli doonto. waxaan rajaynayaa mashruucan hadda aan u nimid solarka daafurkiisa faa'iidooyin badan buu leeyahay wuxuu leeyahay ganacsigu qayb ka qaadanaya oo habeenkii markuu nalku kuu shidan yahay dukaankiina uu kuu furan yahay ama harqaankii aad tolayso oo nalkii haysato makhaayadii ay furan tahay ganacsigii ama inkamkii waxbuu ka bedelayaa tuulada wuxuu kaloo wax ka qabanayaa xagga amniga wax ka qabanayaa oo maanta markii nalkaasu shidan yahay habeenkii tuug ama nabaddiid siduu ugu soo dhuntaa way adag tahay wuxuu ka qayb qaadanayaa oo kale xagga maaragtay bateriyada lagu charge garaynayo intay taleefanada ha ahaato waxyaalaha kale muhiimka ha ahaato intaad meel kale fog u aadi lahaydeen kuwa maaragtay guryihiina aad ku charge garaystaan oo xaafad guri walba uu charge garaysto familiga ayagana waa on board way soo socdaan haddii aan la yidhaahdo. dadka ku nool deegaanada Goobweyn Qaamqaam Yoontoy Bulgudud iyo Baarsangooni ayaa helay adeegyo horumarineed oo ay maamulka Jubbaland oo kaashanaya hay'adaha deeq-bixiyaashu ay ka hirgeliyeen deegaanadaasi taa oo wax badan ka bedelaysa nolosha dadka deegaanadaasi iyo sidii ay u horumarin lahaayeen ganacsigooda balse waxaa jira fatahaado soo laalaabtay oo saameyn ku yeeshay dadka deegaanadaasi kuwaasi oo ilaa hadda aan waxba laga qaban. Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo. baarlamaanka Denmark ayaa ansixiyay sharci dalka u ogolaanaya in ay u musaafuriyaan dadka magangelyo doonka ah ee ku sugan dalkooda
waddamo ka baxsan yurub iyada oo ay hay-adaha taageera dadka qaxootiga ahi iyo qaramada midoobeyba ugu baaqeen in Copenhagen xeerkaasi ay laasho. Xeerkan ayaa waxaa riixayay xisbiga diidan magangelyo doonka ee ay hogaamiso ra'iisul wasaaraha dalkaasi. 70 xildhibaan ayaa sharcigan u codeeyay halka ay diideen 24 xildhibaan Khamiistii shalay. Warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaa magaalada London ka soo diray wariyaha VOA-da ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawd Ismaaciil. xeerkan ayaa Denmark oo aad loogu canaanto shuruucda magangelyo doonka iyo inay ku adag yihiin dadka dalkooda iska dhiiba ay geyn doonaan xiriir qaxoonti oo ku yaala wadamo kale. dalalkaasi ayaa kiisaska qaxoontiga lagu qiimeynaya waxaana dhici karta in wadankaasi la dejiyo gaar ahaan dadka iska dhiiba xuduudaha Denmark. Copenhagen ayaa bixin doonta qarashka ku baxaya qiimeynta dadka qaxoontinimada dalbaday inta kiiskoodu socdo, laakiin waxaa go'aan ka gaaraya dalka la geeyo. Afhayeen hadlay dowladda Denmark ayaa fariin u muuqbaahiyaha dalkaasi u mariyay dadka magangelyo doonka ah ku sheegay inay ogaadaan haddii ay qaxoontinimo ka dalbadaan Denmark in dal kale la geyn doono. waddankan Denmark oo ku yaala Scandinavian-ka oo qani ah ayaa ballan qaaday inaanay cidi iska dhiibin oo ay aqbali doonaan oo kaliya dadka ay qaramada midoobay u qaxoonsato aqoonti. Cabdirasaaq Axmed Ibraahim Afqaraf oo degan magaalada Copenhagen kana shaqeeya laanta socdaalka ee dalkaasi ayaan weydiiyay bal inuu faahfaahiyo sharcigan iyo dadka ugu badan ee uu qabanayo. aad baan ku salaamayaa Cabdixaafid. sidaan loo socono maanta xukuumadda Denmark waxay ay ansixisay oo baarlamaanku isku raacay in qofka qaxoontiga ah ee Denmark qaxoontinimada soo weydiistaan baa asylum seeker-ka in halkii awal xeraaga loo gelin jiray kiiskiisa halkan lagu sugi jiray in qofkaas loo gudbiyo waddanka Uganda oo dhowaan wasiirka qalab bixinta Tayaasef uu tegay dalkaas oo heshiis ula soo galay in ay dowladda Denmarkna ay lacag siiso iyaguna ay xero u sameeyaan qaxootinimada kiiskiisa la baarayo markaa la ogaanayo in sharciga la siiyo iyo inaan sharciga la siin. haddaba arrinkaas waxaa aad iyo aad uga hor yimi commissioneerka European-ka oo runtii yiri sharciga EU-du ma dhigayo iyo waxa kale oo kasoo horjeestay United Nations-ka. waxaa la sheegay in dhowaan dowladda Denmark heshiis la gashay dalka Uganda. waxa kale oo ay dowladdu sheegtay inay jiraan dhowr wadan oo kale oo ay wada hadallo u socdaan. dadka diidan xeerkan ayaa sheegay in sharciyadani saameyn weyn ku yeelan doonaan fayowga dadka qaxoontiga ah. Denmarkna ay mas-uuliyadeeda arrinkan ka saaran ee waafaqsan xeerka Yurub doonaysa inay ka booddo. afhayeenka komishanka Yurub ayaa sheegay inaanay suurtagal ahayn marka la eego shuruucda u taalla midowga Yurub ama kuwa la soo jeediyey ee ku xusan heshiisyada socdaalka iyo magangelyada inay arrintani ka soo horjeedo. waxaanu intaasi raaciyay in xuquuqda dalbashada magangelyada ay aasaas u tahay midowga Yurub. Cabdixaafid Cawd Ismaaciil, VOA, London. dowladda gobolka Ontario ee dalka Canada ayaa ku dhawaaqday in dugsiyada ay xiraan doonaan oo ardayda ay waxbarashadooda ku sii wadan doonaan qaabka online-ka, laakiin mucaaradka ayaa ka soo horjeestay arrintaasi. saraakiisha caafimaadka ee gobolkaasi ayaa xilli sii horreysay soo jeediyey in la gaaray wakhtigii ardada ay ku laaban lahaayeen fasallada. warbixintan waxaa Toronto noogu soo diray wariyaheena VOA ee Canada Xuseen Nuur Xaaji. xilliga ardayda ay ku laabanayaan iskuullada in muddo ah dowladda, saraakiisha caafimaadka iyo mucaaradkuwa way ku kala aragti duwanaayeen. hase yeeshee waaxda caafimaadka ayaa dhowaan soo jeedisay in xilligan ardaydu ay ku laaban karaan fasallada iyagoo u sababeeyey hoos u dhaca kiisaska COVID-19 ee gobolkan Ontario. waalidiinta qaar ayaa xilligaasi walaac ka muujiyey ku laabashada fasallada iyagoo u sababeeyey in dhammaan dadka reer Ontario aysan helin tallaalka koowaad ee COVID-19 taasna ay keeni karto in carruurta ay cudurka keenaan guryaha. dowladda ayaa xilligaasi sheegtay inay si dhow u darsi doonto dib u furista iskuullada. madaxa gobolkan Ontario Doug Ford ayaase hadda ku dhawaaqay in iskuulladu ay xirnaan doonaan ilaa bisha September ee sanadkan. Today, I have to announce that schools will not be returning for in-class learning until the fall. I know this is difficult, very difficult news. It was a hard choice to make, but I will not, and I repeat, I will not take unnecessary risks with our children right now. maanta waa inaan ku dhawaaqaa in dugsiyada aanan lagu laaban doonin ilaa deyrta. waan ogahay tani waa xaalad aad u adag. waxay ahayd mid adag inaan sameeyo, laakiin ma qaadan karo.
waan ku celinayaa ma qaadan karo khatar ku timaada carruurta. xaqadu waxay tahay waxaan la dagaalamaynaa soo rogaal celinta saddexaad ee fayraska noocyada cusub. si ka duwan fayraska asalka ah, qaar ka mida noocyadan cusub waxa ay khatar ku yihiin carruurta. dadka da'da yar ayaana aad ula xanuunsan kara. waxaa kaloon ogahay in inta ardada iyo macallimiin badan laga tallaalayo in barnaamijyada ka dhacaya bannaanka ay yihiin kuwa badqab leh. waana taas sababta aan dib ugu furayno barnaamijyada ka dhacaya bannaanka. And we also know that until we get more students and teachers vaccinated, outdoor activities are safest right now. And that's why our reopening plan starts with outdoor activities. waalidiinta qaar ayaa go'aankaasi la qaba Darkford, madaxa gobolka Ontario, maadaama uu soo dhow yahay xilliga la xiri lahaa iskuullada. Darkford inuu dhaho iskuulka sanadka inta ka dhiman online lagu dhammaysanaya ilaa September lama furayo waxay ku habboon tahay. la iskuulka wax ka dhiman ma laha hadda 3 isbuuc bis muddo 3 isbuuc bis ka dhiman 3 isbuucna wax iskuul ani waalid ahaan loo furo ilmaha routiinkooda loo dhaxgalo wax fiican lama ahano. then it's better inay maxay to sidooda home online kooda ku wataan routiinkooda ay ku waxaystaan schedule-kooda ay ku socdaan iyagana ahaantaas u fiican. ilaan soon summer la galaya iskuulada waa wada xiran yihiin 3 isbuucna waxay u tarayso male. muddo dheer hadday ahaan lahayd laakiin muddo gaaban waxay u tarayso ma jirto. laakiin xisbiga NDP ee mucaaradka rasmiga ee gobolka Ontario ayaa ka soo horjeestay go'aanka madaxa gobolka ee ay ku sii xirnaanayaan iskuulada. Andrea Howarth waa madaxa xisbigaasi NDP ee gobolka Ontario. waxa ay sheegtay in Ontario uu yahay gobolka kaliya ee Canada aanay ardaydu ku laaban fasalada, iyadoo intaasi ku dartay in dowladda gobolku aysan doonayn in ay lacag ku qarash garayso iskuulada. haddaba xildhibaan Faysal Xasan oo ka tirsan xisbigaasi NDP lagana soo doorto xaafadda York South Weston ee magaalada Toronto ayaan weydiiyey waxa ay ku dhaliilsan yihiin go'aanka madaxa gobolka. Xuseen oo aad iyo aad u mahadsan tahay. dhibaatada ugu weyn ee taagan waxa weeyaan dowladdan uu hogaaminayo Ford oo indhaweydba maaragtay 15 bilood ee aan ku jirnay xaaladan degdega ah ee COVID-19 ah. wixii loo baahnaa ee lagu taageeri lahaa iskuulada iyo macallimiinta iyo waalidiinta ma uusan samaynin. waxaa ka mid ah ventilationska iskuulada sala socotid badankoodu waa iskuulo gaboobay. iskuuladan gaboobayna runtii dowladii ka horeysay ee liberaalka ahaydna iyaguna maysan maalgelin. hadda laakiin qoladan ayaa dowladda iyagaa looga fadhiyay inay maaragtay saxaan oo ay maalgelin iskuulada ku sameeyaan, ka hagaajiyaan ventilationskooda, inay class size-ka ay ka dhigaan kuwa yar. fasalka ardayda dhiganaysa lagu soo koobo classkiiba 15 arday. waxaasoo dhan waxaa loo baahnaa inuu fuliyo, ma uusan fulinin. taas ayaana ugu weyn arrinta maaragtay nasiib darrada ah ee Ontario inay tahay meesha kaliya in maaragtay iskuulku uu indhawaalaaba uu maaragtay iska xidhnaa. iskuullada ayaa marar kala duwan la xiray, haddana la furay COVID-19 dartiis, balse bishii Abriil ee sanadkan ayaa guud ahaan iskuullada gobolka la xiray iyadoo waxbarashada ardaydana loo weeciyey qaabka online-ka ah. Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto. dhinaca kalena adeega tallaalka ayaa gobolka Victoria mudnaanta koowaad la siiyey maadaama ay ka jiraan kaysaska ugu badan ee COVID-19 ee waddankaasi. dumarka Soomaaliyeed ee degan gobolka ayaa cabsi ka muujinaya qaadashada tallaalka. warbixintan waxaa magaalada Melbourne ka soo diray Ibraahim Cumar Baafo. ilaa 50,000 oo qof ayaa maalin walba istalaasho tan iyo dabayaaqadii bishii hore ee Maajo. tirada ugu badan ee Soomaalidana dalkan waxa ay ku nool yihiin magaalada tan Melbourne. haddaba dumarka Soomaalidu ayaa cabsi weyn ka qaba qaadashada tallaalka, qaarkood iyagoo ka baqaya in waxyeelo dhanka taranka ay gaarsiiso. laakiin ma jirto khubaro caafimaad oo arrintaasi ku waanisay. hase yeeshee hadda qaar ayaa ku dhiiranaya inay qaataan talaalka. Muumino Cabdi Caynab ayaa ka waramaysa. runtii dowladdu waxay tiri dadku hays talaalaan. weliba hadda Victoria waxaa la yiri priority-ga la siiyey in macnaha talaalka iyaga ay aad iyo aad maadaama kiisasku hadda iyaga ugu badan yahay ama meesha hadda dhibku ka jiro iyada ay Victoria tahay in macnaha dowladdu irbadaha iyo talaalka ay dadka ku dhiirigeliso. weliba irbadihii hore oo konton iyo wixii ka koreeya
loogu talagalay mooyaane irbadihii dambe xataa dadka dhalinyarada 40 iyo ilaa 50 u dhaxeeya xataa la yiri hal la istilaalo oo de free oo qof walba eligible buu yahay from 40 years old la yiri. Muumina weli ma aysan qaadan talaalka, laakiin hadda waxa ay qorsheynaysaa inay isku muddo goojadeedii koowaad, iyadoo dhanka kalena ay ku wacyigelisay bulshada kale ee Soomaalidu inay istalaalaan. Anigu run ahaantii maadaama aan irbada aanan hore iskugu durin, waxaan rajaynayaa aniga qodhayda inaan qaato ayaan insha Allah culays ka saaraya oo aan isku duro. Marka waxaan encouragement ku samaynayaa bulshaweynta Soomaaliyeed oo walwalka ka qaba oo leh dumarkii ay leeyihiin iyo raggiiba ma dhalaysaan iyo ilmahay joojisaa iyo saan weeye iyo waxyaalaha. Waxayna sheegtay in Soomaalidu ay cabsida iska daayaan oo ay ka faa'iideystaan adeegan, iyadoo tusaale u soo qaadatay in haddii uu khatar yahay aan malaayiin qof lagu mudulahayn. ninbaa waxaa laga sheegay hebelo waxaas iyo waxaas baa ku cirkaa soo dumahay siro oo cirku hadduu soo dumo maaniga kaligay buu ku soo dumaya ummadoo dhan buu ku soo dumayaa. macnaheedu waxa weeye markaan taa leeyahay irbadda intaas malaayiin oo Australian qaadanayaan de midda Soomaalida iyo midda anaga kaliya maxaa gooni ka dhigay waa inaan ummadda wax la qaybsanaa waxay yihiin wax la nahay adduunka oo dhan baa irbaddu wada qaadanaya. anagu la kibaabanahay aad baa u nasiib badanahay free naloo keenay oo la leeyahay isku dura waxbayna hadayna ilaahay baa badbaadiyay, laakiin haday coronavirus ka hortag ay tahay daaweynta waxa ka wanaagsan ka hortagga anigu waan soo dhaweynaya dadka qaadanayaan ku jira insha Allah biidnillaahi kariim. Gobolka Victoria intiisi kale ayaa xayiraada laga qaaday maanta marka laga reebo caasimadda gobolka ee magaalada tan Melbourne oo lagu kordhiyay muddo 7 cisho oo dheeraad ah maadaama weli ay ka jiraan kiisas cusub. Ibrahim Cumar Baafe, wararka VOA, magaalada Melbourne, dalka Australia. haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Umaraha Islaamka iyo Cabdixaafid Awl Ismaaciil. markii ay dowladda Masar ka shaqaysay xabad joojintii ka hirgashay Falastiiniyiinta iyo Israa'iil, madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa khudbad u jeediyay ugu mahadnaqay madaxweynaha Masar Cabdilfataax El-Sisi oo xabad joojintaasi ka shaqeeyay. dadka la socda xaaladda Falastiin, Israa'iil iyo Masar waxa ay sheegayaan in Masar ay wax ka bedeshay qaabkii ay ula macaamili jirtay Falastiiniyiinta Gaza iyo Xamaas intii uu Sisi xukunka afgambiga ku qabsaday. waa maxay haddaba sababtu? barnaamijkeena Umuraha Islaamka ayaynu haddii Ilaahay idmo ku lafaguraynaa arrimahaasi. dhowr toddobaad ka hor ayay wasaaradda arrimaha dibadda ee Masar cambaaraysay markii ay milatariga Israa'iil gudaha u galeen masaajidka Aqsa iyadoo ay habeen Rabadaan tahay. khudbadii Jimcaha ee masaajidka Asar ayaa si adag looga cambaareeyay falkaasi ay milatariga Israa'iil ku kaceen, iyadoo imaamkii khudbadda akhriyay uu sheegay in loo baahan yahay ciidan muslimiin ah oo lagaga hortago gardarrada Israa'iil ka wado goobtaasi. madaxweyne Sisi waxa uu hore u mamnuucay in si furan looga taageero qadiyadda Falastiin Masar dhexdeeda, xataa waxa uu joojiyay in looga dibad baxo gudaha Masar. maxaa haddaba ku kalifay inuu ilaa heerkaas uga soo horjeesto qadiyadda Falastiin? su-aashaasi ayaan weydiiyey Cabdiraxmaan Aadan Ruush Xadaana oo ah falanqeeyo degan magaalada London. runtii horta wuxuu bay daba socotaa in Cabdifataax Sisi saynu ka warhayno markii uu qabsaday xukunka waxay markaas ikhwaanka ay isku dhaceen. ikhwaanka waxay u arkayeen inuu yahay nin inqilaab sameeyay, marka dagaal xum ayaa dhexmaray. dagaalkaas wuxuu ku fiday Xamaas oo iyada lafteeda ikhwaanka lagu tiriyo, Tunis oo ikhwaanku ay joogaan, Morocco iyo meelaha kale ee Turkiga laftiisa Erdogan bay isku dhaceen. marka waa fikirkii uu ku qabsaday xukunka ayaad moodaa inuu aad u jiitamay. oo saynu ka warhayno 2014 markii dagaalku uu ka socday Gaza waxa weeyaan iyo Israa'iil, waa warbaahinta Masaaridu waxay taageersanayd Israa'iil kaanama inaanay ahaynba niman markaasi Caraba ama muslimiina. laakiin imika isbedel baa jira. isbedelkaasi wuxuu ku yimi inay moodo inuu heshiis soo socdo. Turkiga iyo waxa heshiiyey Masar, Qatar iyo Masar baa heshiinaya. marka heshiiskaas kana uu la socda una warbaahinta waa tiis bedeshay. Xamaas amaanaysa ma amaanahayn, laakiin Filistiiniinta taageersanayd oo Israa'iil ka soo horjeeday. marka markasta waxay ku xiran tahay siyaasadda guud ee ka dhaxaysa ikhwaanka iyo Cabdifataax Sisi. imikana waxaad moodaa inay arrintaasi soo dhowdahay, waana ta keentay imika in wax weeye Masar la aamino oo dhexdhexaadkii ay intii dhowta xabad joojintii ay xoog u soo gasho, isla markaasina ay fuliso waxa weeyaan labadaba inay raali isku ahaadaan ay xabadda joojiyaan.
muqbaahiyaha dowladda masar ayaa waagaasi ku celceliyey sida ay xukuumaddu uga xun tahay waxa ka socday falastiin maaha tani mid looga bartay dowladda siisi waxaa kale oo dhacday in ila ku dhow dowladda masar ay fidiyeen in dowladdu furtay soohdinta raafa ee looga kala gudbo qasa iyo masar iyadoo ay sidaas tahay xukuumadda siisi waxa ay ku tilmaami jirtay ururka xamaas koox argagixiso ah oo si joogto ah howlo argagixiso uga fuliya deegaanada sinai gacan saarnana leh ururka akhwaanulmuslimiinta sababtaasi ay khatar ku yihiin ammaanka masar dadka ka faalooda arrimaha masar ayaa qaarkood aaminsan yihiin inaanu xaqiiq ahaan siisi dan ka lahayn falastiin laakiin uu doonayo inuu soo jeediyo madaxweyne Joe Biden oo uu ka waayay ahmiyaddii uu Maraykanku siin jiray masar waa kan mar kale Cabdiraxmaan Xadaana way dhici kartaa cabdixaafadow inay arrintaasi jirto laakiin waxaa hubanti ah in Biden uu aad culayska u saaray masar inay arrintan dib u furato saynu ka warhayno Biden iyo Sisi iskuma wanaagsana oo Sisi wuxuu u arkaa Biden inuu yahay gacanyarihii Trump marka laakiin imaka waxaad moodaa markii Israa'iil iyo Filistiiniyiintu ay isdileen inuu soo dibcay Biden oo markaa masar uu xooga saaray oo dee waxa weeyaan iyagoo haddana aad moodaa inay wax ka dhexeeyaan haddana intuu arrintaa markaasi uu dhinacaas ka dhigay inuu masar awoodda saaray inay arrintii soo gasho inay arrintii ay wax ka qabato waana fursad u soo baxday Sisi inuu markaasi Maraykanka laftiisa ugu dhawaado oo uu iska dhigo ninka kaliya ee gacantiisa ay wax ku jiraan inkastoo ilaa hadda Filistiiniyiintu ay ka cabanayaan oo uu leeyahay Xamaas dhismaha la dhisi doono Gaza shaqul kuma yeelanayso waa in la hoosgeeyo Maxamuud Cabbaas inkastoo uu leeyahay dhismaha iyo lacagta waxa loo gelinaya Maxamuud Cabbaas inkastoo ilaa iyo hadda aanu Xamaas xasaasiyad ka qaba laakiin haddana stiil waxaad moodaa inuu ka faa'iideystay fursadda waana tuu doonaya inuu aad uga sii maridhaliyo oo Maraykankana ugu sii dhawaado ikhwaankana ay iskugu soo dhawaadaan oo uu noqdo ninka kaliya furaha haya bariga dhexe isla markaasina loo wada imanayo madaxweynaha masar Cabdilcasiis al-Siisi waxa uu doonayaa inuu ka dhex muuqdo siyaasadda gobolka sidoo kalena ay isku soo dhawaadaan Maraykanka Joe Biden ayaa walaac ka muujiyay dhibaatooyinka xuquuqda aadanaha oo masar lagu dhaliilo laakiin isu soo dhawaanshaha dalalka masar Turkiga iyo Sacuudiga iyo Imaaraadka ayaa sidoo kale isha lagu hayaa inkastoo ay dad badan aaminsan yihiin in isbedeladaasi la mid yihiin caana bacaad lagu lisay oo aanay badiba hogaanka dunida muslimku ka korin kursi jacayl haddaba Biden ma dabcin doonaa siyaasadii uu ku bilaabay masar su-aashaasi waxaan weydiiyey maxamed xasan dable oo bartay cilaaqaadka caalamiga ah degana magaalada Leicester ee dalka Britain cabdi xafid madaxweyne Biden mar walba waxaa hortaagan wixii hortaagnaa madaxweynayaashii asaga ka horreeyey khaasatan xisbiga dimuqraadiga ah waayo mabaadi'da daa'iman xisbiga dimuqraadiga waxay ku doodaan in ay taageeraan dimuqraadiyad difaacaan xuquuqul insaanka raggii isaga ama madaxda isaga ka horreysay arrinkaasi wax badan bay ka tanaasuleen tii unbaa isagana hortaagana waxay u badnaan doontaa inuu tanaasulo soo dabco caqabadaha ku kalifi doona arrinkaa ayaa waxay yihiin qaabkii la isku waafajin lahaa hirgelinta mabaadi'da Maraykanka iyo oo dhinaca iyo xaqiijinta danaha istiraatiijiyadeed ee gobolka uu ka leeyahay talabaad xasilooni darri uu ka cabsanayo Maraykanka inay ka dhacdo haddii shacabka la ogolaado in ay kacaan oo ay xuquuqul insaanka u doodaan dimuqraadiyadna ay dalbadaan sidii ka dhacday Libiya Yemen iyo Syria wuxuu ka cabsanayaa oo kale in loo arko in uu dhinac yahay oo markaa dowladaha kacaan diidka ah sida Masar Sacuudi Arabiya iyo Imaaraadka ay qoonsadaan iyo kooxaha loobiga loo yaqaan ee u ololeeyo danaha dowladaha diidan in uu kacaan dhaco oo markaa ku cadaadiyo Congress-ka iyo Senate-kaba inay indhaha ka qabsadaan oo danahooda ay ka doontaan arrimahaasi ayaa noqon kara caqabadaha hor yaali kara Sisi ayaa hore u taageeray qorshihii dhicisoobay ee heshiiska qarniga loo bixiyey ee wiilka uu sodogga u yahay Trump ka dambeeyay ee Israa'iil iyo Falastiin iyo weliba aqoonsigii uu Donald Trump magaalada Qudus u aqoonsaday caasimadda Israa'iil oo ay aad uga dhiidhiyeen badiba wadamada muslimiinta ay kow ka ahaayeen Qatar iyo Turkigu Malaysia, Indonesia, Algeria, Pakistan, Qatar iyo Turkiga ayaa ka shaqaynaya siyaasado ay isku aragti ka noqdaan Sacuudiga ayaa arrinkan dagaal kula jira oo warwar ka qaba inay ka wareegto sumcaddii uu ku lahaa dunida muslimka laakiin sida ay taariikhdu ina bartay wax kastaaba waa meerto intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynayna barnaamijkeennii amuuraha islaamka aniga oo Cabdixaafid Cawin Ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayay aniga iyo dhammaanba asxaabta igala qayb qaadatay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raalli ka noqdo sidaas iyo nabadgelyo haatanna waxaad nagula nasataan heesta dabacsan
intaasna waxaa ku dhan idaacaddeenna subaxnimo ay wadajirida kugu soo jeedinayeen caashi ibraahim aadan iyo anigoo Ibraahim Xasan Daanduray intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo.